channelkayga TikTok-kayga kusoo dhawaada axbaabii meel walba aad joogtaan. Maanta waxaan ka hadlaynaa qaar ka mid ah dhibaatooyinka caafimaad ee laga qaadi karo fadhiga lugaha oo la isdulsaaro. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkayga subscribe saar kambalelkana furo si aad u hesho macluumaadka aan soo geliyo. Haddii aad ka mid tahay asxaabta hore noola joogtayna muuqaalka inoo like garay lana wadaag asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan macluumaadkan caafimaad. Fadhiga noocaas ah wuxuu dhaawacaa neerfaha dhabarka ilaa iyo neerfaha la xiriira suulka. Dhiigga oo kaca qaabka labada lugood oo la is saarto ama la isdul saaro. Waxa ay kor u qaadaan cadaadiska wareegga dhiigga. Isku dheelitiranka miskaha oo lunta. Qaab fadhiisiga lugaha oo la isdul saarto wuxuu lumiyaa isku dheelitiranka miskaha. Halbowlayaasha dhiigga oo balaartaan. Qofka oo muddo caadeysta qaab fadhiga ee lugaha oo la isdul saarto waxay keentaa khatar aad u badan. Haddaba si aad uga badqabto dhibaatooyinka aan soo xusnay, fadlan jooji fadhiisiga ama qaabka lugaha la isku dul saarto. Haddaba u fadhiiso sida caadiga ah ee iskugu dheelitiran miskahaaga si ay dhibaato kaaga imaanin fadhi xumida.